waalid ma ogtahay dhalinyaradeenna markaa eegto qaybahan Gen-Z-da la yiraahdo 95 ama 97 dhamaadkoodii dhashay iyo wixii ka dambeeyay iyo jiilkan ku xigay Gen Alpha la yiraahdo sifo ay leeyihiin baa jirta oo la yiraahdo empathy. af Soomaaliga waxay noqonaysaa maaragtay la tacaaduf, waxay la tacaadufaan wax walba. haddaad u fiirsato mararka qaarkood wanaag ayay ka qaadan la tacaadufida oo dulmi ma ogolaan karaan. masalan markay arkaan dhaqdhaqaaqan la yiraahdo Black Lives Matter, dadkan bilayska ah ee wadamadan madowga iska leynaya way la tacaadufi, way soo bixi, way mudaharaadi. baraha bulshada waxay ku qoranayaan qofkii madoobaa ee markaa la dilay sawirkiisa halkudhigyo ay ka mid yihiin I can't breathe, Black Lives Matter, qof madow gacanta sidaa leh iyo waxa. sidoo kale arrimaha Gaza markaan eegno jiilka u badan waa dhalinyarada iyagoo Starbucks-ka aad u jeclaa oo kuba noolaa ayay wada qaadaceen, runtii way ka adkaysteen si ay u dhaawacaan ganacsiga qolada Zioniska ama Yuhuudda. waxaad arkaysaa marka mudaharaadyaddan lagu mudaharaadayo Yuhuudda iyo Zioniska ee Gaza iyo Falastiin loo mudaharaadayo iyaga ugu badan. waa sifo fiican. la tacaadufiduna runtii asal bay diinteena ku leedahay marka si xaq ah loo isticmaalo. agoonta inaynu la tacaadufno waynu garanaynaa manziladu rasuul sallallahu alayhi wasallam gaarsiiyey. masaakiinta in la tacaadufo oo yutcimuuna tacaama calaa xubbihi ayadiha ara'ayta alladii yukadibu bidin waa wada garanaysaan. dhibka jira waxa weeyaan marka la tacaadufidaasi waxay la gashaa dhinaca kale oo qoladan qoomuluudka ana waxay mararka qaarkood u arkaan dad la dulmayo, way la tacaadufaan. marka waalidiin fara badan oo Soomaaliya jirta oo runtii mararka qaarkood ku wareerto yimid runtii oo yiri waa sheekhow la hadal wiilkayga, waxaan uga shakisanahay kuwan qoomuluudku ku biiray. sheekhow la hadal gabadhayda, waxaan uga shakisanahay qoomuluudka ku biirtay. maxay waalidiinta arkeen? waxay arkeen bisha Juun marka la gaaro oo qoladan qoomuluudka LGBTQ+ iyo waxay yihiin banaanka ay u soo baxaan, calamadooda ayay screenka TV-ga surtaan. qaarkood waxay xidhaan gacanta wax lagu xidho calankooda, qaarkood t-shirtadooda xidhaan. u fiirsa marka inta badan ma aha inay iyaga ku biireen, ma aha ee waxaa la galay la tacaadufida la gashay oo empathigaasi si khalada u fahmeen. waxaa marka badan dhacaysa marka waalidkii wuxuu moodayaa inuu ilmahani qoomuluud noqday. marka dhowr caruurta ka mid ah la sheekaysta waxay ku odhani they're just so cool. I mean, maxaa laga rabaa? Oh my God, they're so nice people, they're so respectful, they're so kind. I don't know why you guys are hating. saasay ku oranayaan waa dad fiican, waa masaakiin, maxaa laga rabaa? u fiirso, ma aha gabadhani inay qoomuluud noqotay, ma aha wiilkani inuu qoomuluud noqday, laakiin sidaa ay Gaza ula tacaadufeen, ay dhaqdhaqaaqa madowga ula tacaadufeen ee dulmiyo dhan aanay u arki karin maadaamay sensitive yihiin, ayaa waxay noqotay seef laba aflo xaggaashay la gashay. marka waxaan rabaa waalidiinta inaan idhaahdo runtii inta badan saa u fahma la tacaadufida iyo dhaqanka sensitivity-ga xagga la gala da'yarta, waana waxaan aragnay. and by the way, markaad eegto characteristic-ga ama sifooyinka Gen-Z-du ay leeyihiin waa qayb ka mid ah inay yihiin the most sensitive generation. Gen Alpha-na waa sidaas oo kale. labada jiil marka labaduba waxay leeyihiin dhaqankan ah nuglaanshaha ama la tacaadufida ama sensitivity-ga aan cilmiyeysnayn. marka waalidiinta insha Allahu tacaala allaha awlaadda inoo xifdiyo, laakiin waxaan rabaa qodobka inaan baraarujiyo. inta badan waxaan arkay inay tahay caruurtan inaanay qoomuluud noqonin, laakiin ay noqotay maxay la tacaadufid ay la tacaadufayaan. iyada lafteedu khatarteeday leedahay oo waan ognahay haweenaydii uu qabay nabiyullaahi Luut calayhi wa calayhi salaatu wassalaam waa tii lagu daray dadkii la haligay la cadaabay. sababta waa maxay? waa tii markii guriga la yimid maxaan ku dhahaayay lahayd dad baa yimid kaalaya, marti baa yimid, macnii u advocate gareynaysay qoladii qoomuluudka ahayd. ilaahina quraanka wuxuu inoogu sheegay in lala haligay qoladii marka ay u advocate gareynaysay, u doodaysay ama ay ugu yeeraysay guriga. marka insha Allah tacaala shay qurux badan maaha. caruurta waa inaan wax baroon uga digno, laakiin waalidiinta waxaan rabaa inaan u sheego la tacaadufida ayaa caruurta meelo fara badan la gasha. ilaahay caruurteena ha xifdiyo, inagana ha xifdiyo. wa sallallahu ala sayidina Muhammad. wassalaamu calaykum waraxmatullah.